بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورن هدii aad tahay qof shaqeynaya oo dadaalaya haddana aan ogeyn lacagta uu shaqeeyay meesha ay martay soo tacab khasaar iyo madax xanuun ah dabcan haa laakiin dhibta waxay tahay qofkaasi inuu aqoon nidaamka loo yaqaano kaydinta ama luqada qalaad lagu yiraahdo saving sidoo kale ayaa kugu dhici karta graphic designer ahaan haddii aadan aqoonin qaabka iyo habab kala duwan ee aad u kaydin karto projectskaaga muuqaalkan waxaan kugu bari doonaa caadada ugu wanaagsan ee laga maarmaanka ay tahay inaad lahaato graphic designer ahaan oo ah inaad adeegsato Ctrl+S daqiiqad kasta haddaba casharkeena waxaynu ku baran doonaa qaabab kala duwan oo aynu u kaydsan karno shaqadeena aynu ku hayno barnaamijkan Photoshopka iyo waxa ay ku kala duwan yihiin qaababkaas ugu horreyn waxaynu ka jawaabaynaa su-aasha ah waa maxay ujeedkeena aan ka leenahay kaydinta si aynu u kala fahanno save as save a copy export as iyo midka aynu isticmaali lahayn kadib waxaynu baran doonaa waxay ku kala duwan yihiin BSD, TIFF, BSP, JPEG, PNG midka ugu horeysa marka waa save aynu adeegsan doono marka file cusub aan soo abuurano kadib file cusub markaynu sidan u soo abuurano shaqo ku qabano tusaale kale waxaan u baahannahay marka inaan kaydino oo aan ku kaydsano computerkeena shaqadan aynu qabanay si aynu mar kale inooga dhumin marka waxaan aadi doonaa file markaan tagno halkan ay ku qoran tahay save as save baynu aadi doonaa save marka ugu horeysa ee shayga aad rabto inaad save garayso ayaa aad isticmaali doontaa oo adeegsan doontaa marka on your computer baan odhan doonaa kadib save on your computer on cloud ma odhan doono kadib wuxuu ina geyn doonaa computerkeena meesha aynu kaga save garaysan lahayn labada meelood file nameka iyo save as typeka waa labada shay ugu muhiimsan halkan oo kale iminka waxaad ku qoran doontaa meeshan projectigaaga ama documentiga magacii aad u rabtay ayaad ku qoran doontaa tusaale kale marka hadda aynu gorgor ku qorno marka aynu save garayno halkan oo kale iyadana file typeka ama formatka typekan uu yeelan doono ayaad ka dooran doontaa halkan waxaa kuu soo bixi doonta dhowr qaybood oo aynu kala fahmi doono BSD, BSP, PDF, TIFF aynu kala fahmi doonaa marka midka aad rabto halkan iminka waxaynu ka dooran doonaa BSD waa marka ugu horeysa inuu save garayn rabno unbaan u rabnaa haddayna fahanno kadib marka save baan odhan doonaa sidaas hadda marka inoogu kaydsan yahay okay baad sii oran marka qaybta ugu horeysa aynu adeegsan doonaay waa save oo marka waxaynu adeegsan doonaa iyada uu project cusub ama document cusub aan horey u jirin aynu soo doorana ayaynu iyada adeegsan doonaa marka hadda iyadu saas bay inoogu qarsoonaan doontaa oo ma shaqaynayso waayo sababta waxaa weeye documentigeena hadda uu save garaysan yahay already save markaynu adeegsan doono waa markaas waxaa inoogu xiga marka save as baa inoogu xiga save as waxaynu adeegsan doonaa marka document horey inoogu jiray aynu rabno inaan wax ka bedel ku samayno ama aan update garayn ku samayno laakiinse save as markaynu adeegsan doono ogsoonow filekaas formaatkiisu wuxuu noqon doonaa un keliya uu kusoo bixi doonaa un BSD wax kale kaama yeeli doono tusaale kale hadda kan haddaynu wax yar iska bedel ku samayno tusaale kale qayb kale aan kusoo darnay halkan oo kale mid kale aan kusoo darnay kana rabno marka haddii aynu Ctrl+S dhahno iminka mar walbo halkaa yar waad uga jeedaa star ama xidigtaa yar mar walba ay kuusoo muuqato waxay ka dhigan tahay waxaa jirta wax aadna save garin weli oo lagaa rabo inaad save garayso marka waa midii aynu sheegayna mar walba inaad caadaysatay isku day Ctrl+S adeegsiga Ctrl+S marka hadda haddaynu file ku laabano oo aynu aadno save as waxay noo soo bixi doonaa save on your computer baan odhan doonaa kadib isla halkii oo kale ay noo soo bixi doontaa hadda documentigeenan maadaama uu gorgor aynu ku qornay sidaa awgeed ba hadda inoogu soo baxaysaa laakiin halkan hoose markaynu adeegsano isla intii oo kale ay noo soo baxaysaa marka save as waxaynu adeegsan doonaa waan dhahnay marka documenti hore oo aynu abuuranay aynu wax ka bedel ku samaynayno ayaynu adeegsan doonaa marka save haddaan kusii wada hadda isla keenii hore unbaa lagugu bedeli doonaa marka su-aashaas wuu weydiin doonaa already wuu sii jiray marka kan in lagugu bedelo maad rabtaa marka haddaynu u baahannahay inaynu kan naloogu bedelo wax ka bedelka aan ku samaynay yes baan odhan doonaa haddii kale inaan rabin oo mid kale cusub aynu kasii rabna isagana waxaan odhan doonaa tusaale halkan aynu magaca ka bedeli doonaa one baan odhan doonaa kadib save baan dhihi doonaa marka saa waxaynu ku haysanaa hadda laba documenti oo kala duwan oo aynu isku shaqo ahayn haddayna marka aynu u baahannahay isla keenii horown in lagu sameeyo halkii hadda aynu noo dhahnay oo replacementiga uu isagu ku weydiinayay ayaa waxaad odhan doontaa haa waan rabaa in kii horown laygu bedelo marka saasaad u isticmaali doontaa save as waa marka documenti horey u jiray aad update ku samaynayso ama wax ka bedel ku samaynayso haddii kale ood u baahan tahay documenti horey kuugu jiray mooyaan mid kale inaad ka abuurato cusub
iyadana waxaad samayn doontaa save as one. laakiinse markaas waxaynu dhahnay waxaad ogsoonaataa save as markaad isticmaalayso kadib save on your computer dheh. halkan marka intan baa kuu soo bixi doonta oo wax kale format kale kuma soo bixi doona, intan baad haysan doontaa. marka hadda isla keeni hore ayaynu rabnaa oo keeni hore aan ku dhaafaynaa. marka horey inuu jiro waa ujeeda, haddaan save dhaho isla kii hore weydiin doonaa, yes baan oran doonaa, isla keeni hore baan rabnaa in lagu bedelo. marka save asna markaasaynu adeegsan doonaa. waxaa sidoo kale inoogu xiga oo aynu arki doonaa save a copy. save a copy iyadana maxay tahay? save a copy iyadana waxaan adeegsan doonaa marka documenti horey inoogu jiray save on your computer baan dhahaynaa. marka documenti horey inoogu abuurnaa aynu mid kale ka abuuranayna, laakiinse hadda waxaynu awood u leenahay save a copy markaan dhahno faylashii hore wax ka badan save as markaynu dhahaynay inaynu helno. tusaale extensions kale ama formats kale ayuu ina awoodsiin doonaa. isla keeni weeye, laakiinse extensionka bedeli doonaa. halka marka kii hore uu bsd ka ahaa, marka keena waxaan ka dhigi doonaa jpeg oo faylka waan bedeli doonaa formatkiisa. marka hadda wuxuu saas inoogu noqday waa isla faylkeenii hore uun, laakiinse sawir buu hadda inoo yahay. marka halkan jpeg markaad isaga doorato waxaa kuu soo bixi doonta qaaradan yar oo iyadana qualityga laga rabo inaad ka saxdo mar walba maximumka ha kuu ahaado maadaama waxan uu iska yaryahay. marka okay aan dhahno. marka save a copyna waa marka documenti horey kuugu jiray aad rabto inaad wax ka bedel ku samayso, laakiinse wuxuu save asti kaga duwan yahay, isagu formats kale ayaad heli doontaa. laakiin save asta keliya waxaan dhahnay bsd unbuu kuu noqon doonaa ama photoshopka bsd waan fahmi doonaa waxa loola jeedo. photoshopka documenti aad kusoo furi doonto ayuunbuu ku noqon doonaa. save a copy laakiin iyadu waxuu ku awoodsiin doonaa inaad heli karto formats intaa ka ballaaran oo aad ka dooran karto. marka qaabka kale oo inoogu xiga oo savinka ahay isagu waxa weeye waa export. waa qaybtan intaynu aadno export as inaynu dhahno. qaybtan iyada waxaynu adeegsan doonaa marka hawsheenna ama documentigeena aynu dhammayno aynu rabno laakiin inuu sawir ahaan inoogu soo baxo. tusaaloo kale isla kan hadda waxa goordhow baan ku tusi doonaa dhammaantood siday kala duwan yihiin. marka kan haddaan aado oo export aan dhahno, export as aynu isi dhahno, iyada qaanad kale oo tii kale ka gedisan oo ka duwan baa inoo soo bixi doonta oo marka aynu u baahan nahay inaynu iyada wax ka bedbedelno. qaanadan oo kale marka inoo soo bixi doonta iyada export as markaynu dhahno. halkan oo kale formatka ayaad ka dooran doontaa png, jpeg, jef, qaybahaasaad ka dooran doontaa. halkaas waan arki doonaa. halkanna quality aad ka sii doontaa. halkan cabirkii baad ka bedelan kartaa, scalekiisii dhammaan waxaas markaad dhamayso ayaad halkaas aad ku dhufan doontaa. markaas export ayaad oran doontaa. kadib iyadana aan dhahno marka hadda isla kii oo kale unbuu yahay save a copy way. halkan buu iyadana ku weydiin doonaa waxaad u baahan tahay extensionka maadaama jpeg aan soo dooranay iyo format kale inama siin doono. marka halkan iyada markaan jpeg soo dooranno format kale ama inama siin doono ama fursad kale oo aynu kaga dooranno waayo jpeg baan soo dooranay. kadib marka iyada save umaan sii oran doonaa. marka export askuna waa qaabkaas oo kale. export as haddana aynu sii aadno mar kale iyadana waxaynu oran doonaa halka haddii aynu ka dhahnay meeshan aynu bedeli doonaa. halkan haddaynu png ka dhigno iyadana halkan marka haddaynu png ka dhigno waan arki doonaa waxa loola jeedo, laakiinse hadda sababtuu isku bedeli lahay portable networking graphic weeye. png-du ayaa looga soo gaabiyey. marka iyadana qaabka loo isticmaalo waan arki doonaa. marka exportigan si aad u fahanto iyada marka aynu export aynu wax ku save garaynayno waa marka ugu dambeysa aynu rabno documentigeena ama projectigeenu inuu inoogu soo baxo sawir ahaan. marka dhowrkaa qaab oo kala duwan ayaad wax u save garayn kartaa. qaabka koowaad waxaan dhahnay waa intaad xaggan aado inaad save dhahdo oo waa marka documenti horeyba aan kugu jirin oo cusub aad save garayn rabto ayaad s oran. kadib waxaad sii aadi doontaa computerkaaga meesha aad rabto inaad ka dhigato. qaabkan kale oo save asta iyadana waa qaab kale wax loo kaydin karo. qaabkan marka save asta aynu isticmaalaynayo waxaan dhahnay waa marka documenti horey kuugu jiray aad update ku samayn rabto ama aad wax ka bedeli rabto ayaad isticmaali doontaa. laakiinse keliya optionska ama formatska uu kusiin doonaayo waa keliya format bsd ah ama tif ah oo lagu soo furi doono isla photoshop. save a copydu waa isla iyadana sidoo kale marka aad save garayn rabto project ama documenti horey kuugu jiray laakiinse aad u baahan tahay inaad wax ka bedel ku samayso. save a copyda iyada waxaad isticmaali doontaa marka documenti horey kuugu jiray aad save garayn rabto ama wax ka bedel aad ku samayn karto. laakiinse waxaan dhahnay save a copy save asta wuxuu kaga duwan yahay isagu waxaad heli doontaa formats intaas ka badan oo sawir png, jpeg, wayoyi oo kale aad heli doontaa ama pdf waxaasoo dhan baad heli doontaa. export asku waxaan dhahnay isaga waxaan adeegsan doonaa export intaan dhahno export as aan kasii tagno iyada waxaan adeegsan doonaa baan dhahnay marka shayga aan
documentigeena ama projectigeena aan u baahannahay inuu sawir ahaan inoogu soo baxo. Qaab ee save garaynta ama kaydinta markaynu soo kala fahnay, waxaan ku laabanaynaa hadda meeshii hadda aan wax soo dhiganay, qaabkii ay u kala duwan yihiin si aad ila fahanto ayaynu aadi doonaa. mid walba documentskii kala duwanaa aan soo save garaynay. Iminka kan oo kale waa item typekiisa waa ujeedaa, waa JPEG file, waa kii aynu save garaynay ee aynu kusoo save garaynay JPEG-ga oo sawir ahaan buu isagu hadda usoo baxaya. Haddaan soo furo marka wakaa isaga waa ujeedaa qaab sawir ahaan oo caadi aad arkaysid ayuu usoo bixi doonaa. Haddaynu ka laabano kii kale save copy-da aan isaga laftigiisa kusoo save garaynay, isagu xataa qaab sawir ahaan ayuu inoogu soo bixi doonaa. Laakiinse qaabkan kan gorgorkan u horeeya haddaynu soo furno, isagu waa PDF, waa ujeedaa sida wuxuu kusoo furmi doonaa. Layers iyo wax walbuu leeyahay, wax kabedel baad ku samayn kartaa, kanaad tuuri kartaa, layerskiisii baad awoodi kartaa inaad wax ku samayso. Waayo PSD waan arki doonaa dhawaan hadduu Ilaahay yiraahdo, waa file Photoshop oo lagu soo furi karo, waxna kabedel lagu samayn karo. Haddaynu isla kan kale aadno, kan kale laftigiisa waxba kuma duwana, waa kii save as aynu isticmaalay. Iminka labadani waa isku mid, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin. Kanna haddaynu soo furno, waa ujeedaa waa isla keeni uun, laakiinse waxay labaduba inoo kala ahaayeen, labaduba Photoshop baynu ka dhignay ama PSD baynu ka dhignay iyagoo isku mid ah. Laakiin midna waxaan adeegsanay save caadi ah, midna save as baynu isticmaalnay. Marka saved waa marka ugu horeysa, save as-tuna waxaan dhahnay waa marka documenti horey kuugu jira aad wax kabedel ku samaynayso. Tusaale kale haddaynu soo furno thumbnailkan oo PDS filekan haddaynu soo furano oo horey inoogu jiray oo aynu isaga soo furano, marka halkan oo kale waa ujeedaa iminka documentigan horey buu u save garaysnaa. Marka isaga haddaan file aado oo save dash dhahdo waa iima yeelayo, sababtu waxay tahay mar hore uu u save garaysnaa documentigan. Laakiinse haddii waxaan u rabaa isagoo filekani ii yaallo oo aan waxba ka bedelin, tusaale kale thumbnailkan lesson 3 baa ku yaala, lesson 4 baan rabaa halkan inaan ka dhigo oo tusaale kale aan wax ka bedel ku sameeyo. Meeshan oo kale haddaan u baahdo waxaan samayn doonaa inaan xaggan bedelno oon lesson 4 ka dhigno. Marka isla filekeenan aynu haysanayba waxaan rabnaa, hadda waxaan rabnaa aynu level 4 ka dhignay ayaan waxaan rabnaa isaguna inuu file gooni inoo ahaado. Marka iminka tusaale kale haddii waa ujeedaa mar walba calaamadaas waxaan dhahnay ay soo baxdo star ama xidigtaasi, waxay ka dhigan tahay wax ka bedel baad ku samaysay kadib inaad save garaysaad u baahan tahay. Waana caadadii aan dhahaynay qof walba oo graphic designer raba inuu noqdo waa inuu bartaa uu ku takhasusaa mar walba isticmaalka isbaraana gacantiisa baraa. Marka haddii iminka file aan ku laabto oo aan save dhaho, isla filekii hore ii jiray buu ku bedeli doonaa kan. Marka anigu laakiin uma baahnin sidaas, waxaan rabaa filekan kii hore oo lesson 3 ga inuu isagu meeshiisa ii yaallo, isla kanina inuu ii ahaado mid cusub isaguna oo aan hadda isticmaalo. Marka file baan aadaynaa, sidaan saa u samayno waxaan dhahnay save as waa inaan tagnaa. Marka save as baynu aadaynaa, save on your computer baan dhahaynaa. Kadib wuxuu inoo weydiin doonaa magacaan ku qorayno. Haddaynu magac isla kii hore ku dayno, filekii hore wuu inoo yaallaa, halkaasuu yaallaa oo kii unbuu ku koobiyan doonaa. Marka waxaan rabnaa isagoo kii hore halkaasuu inoo yaallaa, waa ujeedaa. Marka kanaan rabnaa inaan magaca ka bedelno wax ku darno, file cusub isaguna siduu inoo noqdo lesson 4-ka. Marka 1 baan raacinaynaa tusaale kale, kadib save baan odhan doonaa, kadib okay baan sii dhahaynaa. Marka haddaan ku laabto hadda oo kaygii hore soo furo, marka kaygii hore haddaan soo furo waa ujeedaa. Markaan kaygii hore soo furno lesson 3 waa kan inoo yaalla, kii horena hadda samaynayna waa kan inoo yaalla marka lesson 4. Marka qaababkan kala duwan, dhowrkaa qaab ee kala duwan baan wax u save garayn karnaa. Marka hadda waxaynu kala fahmaynaa waxa ay kala yihiin PSD, TIFF, BSP, JPEG, PNG. qaababkaas ayaynu kala fahmaynaa. Tusaale kale waxaan ku horeynaynaa hadda saynu soo fahnayba filekan baan rabnaa inaan save garayno. kadib save on your computer baan dhahaynaa. halka marka PSD fileka uu kusoo qorayo waxa weeye waa file calaamadan buu yeelan doonaa markaad arkaysid. Marka waa file mar walba kusoo furmi doona Photoshop baa mar walba lagu soo furi karaa, wax ka bedelna waa lagu samayn karaa. Marka PSD waxaa loo soo gaabiyey Photoshop document. sidaasaad marka ka dhigan doontaa mar walba ood u baahan tahay filekaaga inaad wax ka bedel ku samayso ood mar walba ku laabato, waxaad isticmaali doontaa formatka PSD-ga. waxaa sidoo kale isaguna aad u muhiim oo la isticmaalaa si aynu u fahno TIFF-kan isaguna wuxuu yahay waa Photoshop-kaagii. tusaale haddii aynu sawirkan hadda documentigan TIFF aynu ka dhigno, kadib aynu save dhahno, wuxuu isagu uu ina awoodsiin doonaa formatkan TIFF-kii. kadib okay baan sii dhahaynaa, sax dheh. markuu inoo save gareeyo
isagu tifku wuxuu kaga duwan yahay PSD-ga. tusaale kale haddaan halkan ku laabano oon sawirkeennii aadno, tusaale kale meeshuu inoo dhigay baan raadinaynaa. kadib marka waa kana faylkeennii halkaasuu inoo dhigay, waad ujeedaa tifku yahay. marka muuqaal ahaan isla kani hadda waa kan terminalkan, markan waa PSD. PSD qaabkaas uu soo bixi doonaa, Photoshop bisa lagu furi karaa. laakiin kan haddaynu soo furno xataa labadaba waynu awoodi karnaa inaynu sawir ahaan u aragno tifka iyo inaynu sidoo kale Photoshop ahaan u aragno. marka tifku qaabkan wuu inooga soo bixi karaa, sawir ahaan markaynu u rabno sidan buu inooga soo bixi karaa. haddii laakiinse marka tifka isaga faa'iidadiisu waxay tahay JPEG oo sawir ahaanna waad ku arki kartaa, Photoshop ahaanna waad ku arki kartaa. oo haddaynu isla Photoshop kusoo furno hadda qaabkaas sawir ahaan baan usoo furnay ahayd. haddaynu kusoo furno Photoshop waxaynu samaynaynaa qaabkan. marka isla sawirkii tifka ahaa ee hadda sawirka aynu ku arkaynay aynu samaynay inaan Photoshop ahaan kusoo furno. marka open with Photoshop baan dhahaynaa. kadib marka waa ujeedaa halkan layerskeennii waxaynii oo dhan wax waan ka bedel waan ku samayn karnaa. hadaynu highlight garayno waa ujeedaa. marka formatka tifka isaga faa'iidadiisu marka waxay tahay waxaad uu ku awoodsiin karaa inaad sawir ahaanna shaygan u aragtid, fayl ahaan aad u aragtid oo wax ka bedel ku samaysid. marka halkeenna aan ku laabano. marka intaas ka badan si aynu u aragno, si aan u fahno, PSD waxaan dhahnay waa fayl aad wax ka bedel ku samayn karto sawir ahaan, laakiinse aadan u arki karin. tifku isagu laakiin waa shay isagana formaat ah, formaatkiisu tifku isagana marka waa formaat aad wax ka bedel ku samayn karto sawir ahaanna aad u arki kartid labadaba. marka waxaan arkaynaa hadda qaybkan kale oo DSP-ga la yidhaahdo. kan aad arkaysid documentigan waxaa loo isticmaalaa isaga badanaa waa Photoshop big weeye, dokumentiyada culculus baa isaga badanaa loo isticmaalaa, isagana formaatkaasi waa noocaas oo kale. JPEG kan baan arkaynaa oo isagana JPEG ah. JPEG isaguna waa marka aynu qaabkaynu soo arkayni, waa marka aad faylkaaga dhammaystirto una baahan tahay inaad sawir ahaan aad u soo saarto. marka isaga markaas oo kale JPEG baad isticmaali doontaa. marka qaabka kale formatka kale waa PNG. PNG-ga saan iskula fahnay isaga marka loogadeenna waxaan kusoo furaynaa Photoshopka. PNG-ga isaga waxaa la adeegsadaa baan dhahnay marka loogooyinka oo kale aad u baahan tahay inaad backgroundka aad ka saarto oo background la-aan aad ka dhigto ayaa PNG shaygan lagu save garaya. tusaale kale haddaan file dhahno imika save as aan dhahno, save on your computer aan sii dhahno, kadib marka halkan faylka waxaan ka dooran doonaa PNG haddaan ka doorano backgroundka wuu inaga qaadaya, wuu inaga remove garanaya saad u jeedid. marka tusaale kale marka halkan haddaan kusoo durfulo loogadeeda laba qaab baan usoo furaynaa si aad ila fahanto. qaab tan waxaan soo furaynaa tan markaan qaabkan loogada markaan usoo furno waa iyadii oo JPEG ah weeye oo background wadato. marka meel kama soo dhex muuqan karta meesha, way qarinaysaa waaye, iyadii baa qarinaysa. laakiin markan oo kale si aad taasoo kale u noqoto waa inaad marka hore loogada aad soo save garanayso aad ka saartaa backgroundka. tusaale kale haddaan tan kale soo qaadno, marka waad ujeedaa iyadu say uga soo dhex muuqanaysa markaynu soo dhigno meesha, tanna sayna uga soo dhex muuqanayn. keliya waxay ku kala duwan yihiin wax kale ma aha, waa formatka qaabka loo soo save gareeyey. tanna marka backgroundka ayaa laga qaaday oo PNG baa lagu soo save gareeyey, tanna JPEG ahaan ayaa lagu soo save gareeyey oo backgroundkeedii bay wadataa. marka shay aad ka qaadi rabto tusaale kale markay sidan oo kale tahay waxaad samayn doontaa backgroundka ay leedahay baad visibility-ga isha aad ka qaadi doontaa, kadib qaabkaasaad formatka uga dooran doontaa PNG. marka qaababka kala duwan ayaa wax loo save gareeyaa. marka mar walbana waxaad isku daydaa saynu hore usoo sheegnay inaad gacantaada barto control plus sistaan sheegayna. marka waa halkan shay walba markaad wax yar iska bedel ku samayso, isaga wax ka bedel wuxuu u yaqaanaa haddaad kan aad yar dhaqaajiso xataa oo dhinac u dhaqaajiso isaga wax ka bedel buu yaqaanaa. mar walba oo save garayn aad u baahan tahayna sidaynu soo sheegnay xidigtaa yar baa halkan kaaga soo bixi doonta. marka control plus s haddaad taabato wuu save garayn rabaa, xidigtiina sidaas lagaga qaadi rabaa. marka dokumentigaaga marka u horeysa aad soo doorato adoon waxba bilaabinba waxaa aan kugula talinayaa si aysan waqtigu khasaar uusan kaaga noqonin oodan shayga mararka qaarkood waxaa dhici kartaba inuu laptopkii kaa jaam garoobo ama uu kaa damo ama cilad kale ay ku timaado. marka hawshaadii ama shaqadii aad qabatay inaad dib kasoo bilowdo ayay noqonaysaa mar walba. marka waxaad ku dadaashaa
shay walba markaad wax ka bedel ku samayso marka u horeysa aad faylkaaga soo doorato inaad fayl aado kadib save aad dhahdo kadib computerkaaga magacaada usii bixiso adigoon waxba ku qorin haddana mar walba ood shaqo yar qabato inaad control+s aad adeegsato si aad u awoodo wax weyn inuusan kaa bixin sidoo kale waxaan ku daraynaa hal shay oo save garaynta la xiriira waxaynu aadi doonaa edit ayaynu tegi doonaa halkana preference baan kasii tegi doonaa general baan aadi doonaa general preference markaad aado halkan file handlekaad kasii aadi doontaa meeshan ay ku qorantahay automatically save recovery information every halkaas ayaa waxaad ka dhigan doontaa bedelan doontaa waxay kusoo baxdaa 10 daqiiqo 5 daqiiqaad ka dhigan doontaa si shaqadaada mar walba oo aad 5 daqiiqo kasta lagugu sii save gareeyo marka halkaas aad iyadana ka saxan doontaa kadib okay baad oran doontaa si 5 daqiiqo kasta wixii aad qabato automatically lagugu save gareeyo haddii xataa uu kaa jaam garoobo markaad dib usoo kiciso aad awoodi doonto inaad hawshaadii aad qabatay aad heli doonto marka dhowrkaa qaab baa wax loo save gareeyaa waxaan rajaynaynaa si fiican u fahanteen halkaas ayaan ka keenna cashirkeena maanta qaybihii aasaasiyaadka ayaynu weli ku jirnaa waxaynu bilaabi doonaa hadduu ilahay yidhahda tooliska hadda wixii intaas ka dambeeya cashirkeena maantana halkaas aan ku keenaynaa khayr badan baan idin rajayn subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk